kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona ganacsado Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika sirdoonka Suudaan iyo Daacish oo ku dagaalamay Khartoum dowladda Kenya oo cudurka COVID-19 ka talaalaysa maxaabiista dalkaas daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dil saacadihii la soo dhaafay loo geystay muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool dalka Koonfur Afrika marxuumka ayaa magaciisa lagu koobay Axmed waxaana dilka uu ka dhacay goob ganacsi oo uu ku lahaa deegaanka Jimawa Block 7 oo u dhow magaalada Tinznan oo ka tirsan gobolka Limpopo ee dalkaasi wararka ayaa sheegay in dilkani ay geysteen kooxo burcad ah oo weerarka ku qaaday dukaanka ganacsadahaasi iyagoo oo dilay kadibna dhacay goobta sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in xilliga la dilay muwaadinkaasi ay la joogeen dhalinyaro kale oo Soomaali ah kuwaasi oo cagahooda uga baxsaday burcad qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ayaa sidoo kale sheegay in kooxdii ka dambeysay dilkaasi ay goobta iskaga baxeen kadib markii ay geysteen falka dilka waxaa sidoo kale goobta gaaray ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrika oo baaritaano kooban ka sameeyay deegaanka uu dilku ka dhacay balse kama aysan hadlin dhacdadaasi Soomaali badan ayaa ku nool dalka Koonfur Afrika kuwaasi oo ganacsiyo kala duwan ku leh magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi inta badani wajaha xaalado aad u adag si kastaba muddooyinkii dambe ayaa waxaa soo tarayay dilalka iyo dhaawac iyo weerarada loo geysto ganacsatada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika haatana sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya iskahorimaad u dhaxeeyay ciidamada sirdoonka waddanka Suudaan iyo Iraq ka tirsan kooxaha Daacish kaasi oo ka dhacay xaafadda Gabra oo ku taala koonfurta magaalada caasimadda ah ee Khartoum wararka ayaa sheegay in dagaalka uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ee uu dhaxmaray iskahorimaadka dagaalka ayaa yimid ka gadaalay markii ciidamada ka tirsan kuwa sirdoonka ay howlgal ku qaadeen xaafadaha Gabre kadib markii ay heleen xogo amni waxaana markii ay tageen halkaasi ay iska caabin kala kulmeen rag hubeysan oo ka tirsan kooxda Daacish inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi Suudaan looga dilay ugu yaraan 5 sargaal oo ka tirsan sirdoonka dalkeeda halka mid kalena loogu dhaawacay sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda ayaa xaqiijiyay in dhankooda ay dileen ilaa iyo 10 ka tirsan kooxda hubeysan oo ay dagaal kala galeen dad kale oo looga shakisan yahay ay gacanta ku dhigeen kuwaasi oo lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin Daacish dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Suudaan Abdallah Hamdouk ayaa ka hadlay weerarkani isagoo ku eedeeyay inay ka dambeeyeen dad rabeen inay khalalaaso geliyaan dalkiisa Abdallah Hamdouk ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelada saraakiisha iyo askarta ku dhintay iskahorimaadka ay la galeen kooxaha hubeysan ee ka dhacay Khartoum dhacdadan ayaa ku soo aadaysay iyadoo 22kii bishii September uu Suudaan ka dhacay afgambi dhicusubay kaasi oo ay ku hortageen ciidamada ammaanka ee dalkaasi haatana dalka Kenya wasaaradda arrimaha gudaha iyo caafimaadka ee dalka Kenya ayaa daahfurtay oo lala socon doono muddo 5 cisho ah oo lagu bartilmaameedsanay ilaa iyo 50,000 oo maxaabiis ah si looga talaalo cudurka COVID-19 waxaa sidoo kale dabooyinka talaalka la siin doona saraakiisha asluubta ee ilaaliya xabsiyada dowladda Kenya ayaa ashaacisay in talaalkani laga sameyn doono ilaa iyo 133 xarumood oo ku kala yaalo guud ahaan dalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa sheegay in kadib markii talaalka uu soo dhamaado maxaabiista loo ogolaan doono in eheladooda ay soo booqdaan bishii afraad ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda ay meesha ka saartay in xubnaha qoysaska ay soo arkaan eheladooda ku jira xabsiyada si aynan isku qaadsiinin cudurka safmarka ah ee corona wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa in ka badan 100,000 oo qof dabooyinka talaalka ugu talagashay waaxda asluubta ee dalka daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo daafaha caalamkan idinkaga hanay wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray akhrinaya anigu ah Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doona waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah